waxaan rabaa inaan marka hore warbixin guud ayna ka siiyo bangiyada inta aan wadankeena hadda ay kusoo badan 10 sano ka hor ama ugu badnaan muddo kooban ka hor sidii xaaladda wadanka ahayd bangiyada muhiimadda iyo doorka ay nolosha ay ku leeyihiin sida aan la soconaba waxaan ogsoonahay muddo ka hor in wadankeena aysan jirin ama aysan ka shaqaynin wax la yidhaahdo banki system aan adeegsanayna qaabab kala duwan oo macnaha ishay adduunka inta badan aan laga isticmaalin taasna waxay caqabad ku ahayd ganacsiga iyo isku xirka wadankeena iyo adduunka intiisa kale sidaas awgeed bangiyadu waxay soo kordhiyeen in ay meeshii ka saaraan adeegyadii aan dhihi karno adeegyadii traditionka ahay horumarka iyo waxyaabo fara badan qayb ku lahaayeen taas ayaa keentay in maanta ummadda Soomaaliyeed ay adeegsadaan ama loo suurtageliyo bangiyada noocyada kala duwan dabcan waxaan rabnaa bangiga markaan dhahno bangiyadu waxay u kala baxaan 4 qayb afartaas qayb oo kala ah central bankiga banki oo retail ah oo mid tafaariiqla ah oo dadka caadi shakhsiyan ah iyo mid commercial ah iyo mid investmentiga ah intaasba macnaha waxa waaye waxaan dhihi karnaa maanta waxaan haysanaa inta badan Soomaaliya labada ugu muhiimsan oo ah retail bank iyo commercial bankiga adeegyada ay baxshaan ama ay maanta laga helo tusaale markaan soo qaadano retail bankiga wuxuu inta badan servicekiisa iyo productkiisa waxa waa individual qofka ayaa macnaha ay sheegay hadii uu rabo inuu gaari iibsado hadii uu rabo guri inuu iibsado wuxuu toos ula macaamila retail bankiga sidoo kale haday noqoto commercial bankiga wuxuu xooga saaraa sida uu horumarin lahaay ama qayb uga qaadan lahaay ama uu keenin lahaay features iyo productyo fara badan dhinaca businesska ah ayuu macnaha inta badan xooga saaraa ayadoo intii hawsha uu qabanaya retailna uu qabto marka kale oo aan fiirinayna bankiga kale oo ah investmentiga inta badan wuxuu xooga saaraa maalgashiga waaweyn sida institutional investmentiga ah iyo suuqyada aan dhahno money marketka secondary market waxyaabaha la xiriira financial issue marketska ayuu inta badan shaqadiisa ay tahay sidii oo uu si draft gareyn lahay inuu soo saaro debta cusub oo suuqyadaasna lagu kala qaato productyada ama iskaashiga ganacsiga kala duwan marka aan usoo laabano marka muhiimadda bangiyada iyo jiritaankooda waxaa door weyn ku leh central bankiga oo dowladda wakiilka ah oo ka socdo haddii bangiyadan inta badan center walbaba ama central bank walbaba adduun ka jiro muhiimadiisa waxaa waaye safeguard inuu badbaadiyo mararka qaarkood waxaa dhici karta in bangiyadan ay ku kala awood bataan xagga consumerska ama suuqi waxaa dhici karta in qalqal uu ku yimaado in ay macnaha ii sheeg bangiyadan ay xirmaan waxaa jirta marka policy ah central bankiga oo la yidhaahdo lender last resort oo ah macnaha platform loogu talagalay bankiga haddii caqabad ay soo wajahdo lagu kaabayo wax loogu qabanayo talo lagu siinayo haddii uu fan u baahan yahana deyn lagu siinayo si bankigaas loo badbaadiyo haddii intaas wixii ka badan oo macnaha ii sheeg suuq ka baxana waa mid ayada taas aan waxba laga qaban karin sida maanta xaaladda wadankeena maanta oo marayo bangiyadeena maanta waxay ku shaqeeyaan lacag currency midda anaga aan leenahay mid ka duwan ka baxsan taas ayaa loo baahaya marka central bank inuu garto inaan leenahay lacag anaga aan leenahay inaan soo saarno oo bangiyadeena ay aqbalaan haddii aan fiirino bangiyadeena maadaama ay soo bateen maxaa isbedelay maxay soo kordhiyeen waxaan dhihi karnaa isbedel weyn oo la taaban karo ayay soo kordhiyeen wayna ku ammaanayiin doorka ay qaataan tusaale ahaan waxay inta badan ay fududeeyeen transactionadii hadday ahaan lahayd inay dadku si fudud wax u iibsadaan hadday ahaan lahayd in saving dadka ay samaystaan hadday ahaan lahayd in transactionadii oo aan u baahnayn dalka dibaddiisa bangiye aan la xiriirno inay soo qaataan oo ay noo soo fududeeyeen taas waa mid ugu muhiimsan oo maantay wadankeena ay kusoo kordheen qof walbo Soomaaliya maantay asoo gurigiisa joogo ayuu la soconaya xisaab xirkiisa accountadiisa transaction walbana wuu sameyn karaa sida kale haddaan u fiirino dhalinyaradu iyo sidee uga faa'iideysteen waxaan dhihi karnaa baahida jirto shaqo la'aanta dalkeena
iyo bangiyada soo badanayo waxaa muhiim ah dhalinyarada laftigeeda inay gartaan muhiimadda ama skillka inay helaan ama ay isku diyaariyaan inay uga faa'iidaystaan bangiyada shaqooyinka ka bannaan ayagoo inta badan isku taxaluujinaya inta badan inay la yimaadaan ama ay bartaan iskilaadka looga baahan yahay financialka marketka sida ugu shaqayn lahaayeen. waxaa sidoo kale ay suurtagal ay tahay ama inta badan ay kaalin ka qaadataa in dhalinyaradu ay helaan fursad ay ku codsadaan maalgelin ganacsigooda, taasoo suurto gelinayso inay dhalinyaradu ay wax badan uga faa'iidaystaan majaalka dhinaca maalgelinta ganacsiyada sida gaarka loo leeyahay.